maxaad ka taqaanaa badda geedaha ee cabsida badan ee deegaanka Aokigahara? deegaanka Aokigahara oo sidoo kalena loo yaqaan badda geedaha waa kayn dhinaca waqooyi galbeed ka xigta buurta Fuji ee dalka Japan, waxaana ay ku fadhidaa dhul qiyaastiisu tahay 30 kilomitir oo laba jibaaran. waxaana la sheegay in ay ka samaysan tahay qarax weyn oo ka dhacay buurta Fuji sanadkii 864. xeebta galbeedka ee Aokigahara waxaa ku yaala dhowr god oo barafku ka buuxsamo waqtiga jilaalka qaboobaha, waana goob caan ku ah dalxiisayaasha iyo safarada ardayda dugsiyada. qayb ka mid ah Aokigahara waa kayn jiq ah oo aad isugu cufan yihiin kuwaas oo ay ka xiiseeyaan dalxiisayaasha. Aokigahara waxa mararka qaarkood loo yaqaanaa goobta ugu caansan isdilitaanka Japan. sanadkii 2003 105 qof meedkooda ayaa laga helay kaynta dhexdeeda kuwaasi oo isku dilay, waxaana ay dhaaftay rikoorkii hore ee ahaa 78 qof sanadkii 2002. sanadkii 2010 boolisku waxay diiwaangeliyeen in ka badan 200 oo qof isku dayay inay isku dilaan kaynta dhexdeeda, kuwaasi oo 54 ka mid ahi ay dhameystireen falka. isdilitaanka ayaa la sheegay inay kordhaan inta lagu guda jiro bisha March dhamaadka sanadka ee Japan, inkasta oo aan sabab la sheegin. laga soo bilaabo sanadkii 2011 habka ugu caansan ee isdilitaanka ee kaynta waxa ugu badan in qofku isbedelo ama uu qaato drogo xadigeedu uu aad u badan, taasi oo sababta dhimashadiisa. sanadihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta arrimaha gudaha ayaa joojiyay faafitaanka tirooyinka isku dila goobtan, iyaga oo isku dayay inay hoos u dhigaan isdilka deegaanka Aokigahara. heerka ismiidaaminta ee batay ayaa u horseeday mas'uuliyiintu inay calaamado ay u sameeyaan goobta laga soo galo, kuwaasi oo ay ku qoran yihiin weedha ha isdilin, caawimaad weydiiso booliska, qoyska iyo carruurtaada ha idlayn. joojinta isdilka kaynta waxa qayb weyn ka qaatay booliska, samafalayaal iyo suxufiyiin laga soo bilaabo sanadkii 1970. haddana arrimahaasi wax weyn kama bedelin, waxna ay noqotay goobta dunida ugu weyn ee isdilku ka dhaco. sababta ay dadku goobtani u doortaan inay ku dhintaan ayaa xidhiidh la leh sheeko khuraafaada oo lagu magacaabo Shishio Matsumoto, taas oo ay sheegaysaa inay tahay goob barakeysan oo ku wanaagsan inuu qofka ku dhinto.